waxaynu markaas si degdeg ah u dulmari doonaa inaynu soo bandhigno sidii halkii hore oo kale sababaha lagu galo jannada iyo jannada waxa yaala waxa aynu soo xusi doonaa camalada qaarkood waa arkaanul iimaanka iyo arkaanu islaamka iyo usuushii diinta waa weynay laakiin camalo kale oo aynu fudaysano dadkoo dhamina inta badan samayn karo ayaynu arki doonaa inay sababaha jannada yihiin si kale haddaynu u dhigno jannaduba inay sahlan tahay dadku lagu kari laayay baynu arki doonaa jannaduba dariiqeedu wuu sahlan yahay gadaankay saarantay agtaadaasay taallaa marka soo qaadashadii dadka ayuunbaa waxaa u diidan kaarhkeedii in lasoo qaatunbuu ibliis diidan yahay markaad gacanta ku fidiso saasuu kaa odhanaya oo kolba uu kuu diidayaa inaad kaarhkaa qaadato kow sababaha waxaa kow ka alikhaaru min alacmaali asaalixa camalada wanaagsan in la badiyo albaaqiyaat asaalixaat buu naskuu bixiyey waa waxyaabaha hadhaya camal kasta oo khayr la qowl iyo ficil iyo qalbi camal kasta oo khayr loo diintu ina fartay in la badiyo nebigu xadiid waxa uu ku yihi calayhi salaatu wasalaam saxiixa qofku haddii uu wejigiisa u dhacu weligii sujuudsanaado ilaa maalintuu dhimanayo intuu gaboobay gabow dhimanayo camalkiisa maalinta qiyaamo wuu xaqiri lahaa laba arrimood buu u xaqirayaa korkuu arko balaayada weyne meesha ka dhacaysa aynu ka soo warannay wuxuu odhanaya wallaahi camalkani waxba ka tari maayo meesha waxa soo socda ee balaayays huwan waxba ka tari maayo wixii yaraad samaysay waxa labaadoo u yaraysanayaa markuu arko deeqda ilaahay iyo nicmada meesha taaltaalle faraha badan ayuu odhanaya camalkaagii yaraa muxuu ka goynayaa in badan ba aad soo sujuudide muxuu ka tarayaa camalkaaga ayuu odhanaya waxyaabaha qofka sabab ugu noqda waxaa ka mid a imhaalu lmucsiri watajaawuzu canh dadka dhiban oo loo fududeeyo daynta dale qofku hadduu faqiir yahay u warwaraya gashina qaato dayn lagu leeyahay wuu nugul yahay wuu cabsanaya wuu damqanaya haddaba qofkii daynta ku lahaa hadduu u dabciyo idhahdo bar iska keen ama u idhahdo miyaad weyday waaban kaa saamax jannada sababaheedu ka mid yahay lagu galayo xadiid saxiixa oo muslim ku sugan shardigiisa abi hureyra uu nebiga ka soo maqlay calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxu uhi nin baa ummadihii hore ka mid ahaa weligiiba khayr muu samayn laakiin inta khayr uu sameeye keligii waxay ahayd dadka marka uu daynta ku yeesho shaqaalihiista daynta soo ururinaya ay u tagaan ee uu qofku idhaahdo waxba ma hayo ayuunbu dha inaga daaya iyuu soo waayey iska dhaafa maalintii qiyaamaha camalkiisii loo miisaamo waa la waayey waxba waa loo waayey waxa uu ihi hal camilta khayran qad qaala laa miyaad khayr weligaa samaysa adla shir timaada maya laakiin waxa uu sheegay dee markaa dadka uu daynta ku leeyahay waayaan inuu ka dhaafi jiray ilaahayna wuxuu ihi ilaahii boqorka ahabaan ahaye isagoo addoonuu dadka ka dhaafi waayey ayuu ka dhaafayay dayntae ma anaan ka dhaafay ilaahayna wuu ka dhaafay wixii haddaba ninkii bilaa khayrka ah waxba qabaninba kale marka arrintaasi arrin sahlan ma aha qof nugul oo dabacsan oo dayn ku leedahay inaad u dabciso waxyaabaha inala fudud waxaa ka mid ah sababaha jannada lagu galo jidkan dadku ay marayaan oo laga qaado wixii dhiba imaadatu lada cani ariiq inaan weligiiba khayr samayn buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiid kaloo saxiixa ayaa waduu marayayo dirtii geedkii kusoo fooraray ee dadka qabsanayay qodaxdiisu ay waxyeelaysa ayuunbuu ka jaray kolkaasuu ilaahay jannada geliyey fashakara allaahu lahu biha faadkhalahu ljanna xadiidkaa saxiixa ilaahay baa u mahadnaqay maxaad malaysa addoon yaroo miskiino ilaahay u mahadnaqay ilaahii weynaabaa u mahadnaqay markaasuu jannada geliyey waa wixii jannada lagu gelaya waxaynu ka hadlaynaa marka inaad kudaafadii qaado shaarica ku daadiso maya wataa maanta laynoogu faanayo laleeyahay clinicski waxaa yar haddii aad dhaska ku daadiso reer magaalnimadaadii waxu dhinmaya innagii baa laynoo faanaya innagii ay ahayd inaynu jannada ku raadsanno waxa kudaafadda laga qaadayo ayaa maanta la marayaa waxaa laydin barayaa shaarica sida loo nadiifiyo iyo sida loo farxasho waa nasiib daro waxyaabaha jannada lagu galo waxaa ka mida dikriga ilaahay xuska alleh inaanad ilaahay ilaawin ee ilaahay aada xuskiisa badinayso nebi maxamed wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiix ahaa rasuulkaa wuxuu xusay inuu la kulmay nebi ibraahim habeenkii la dheelmiyey fariin buu inoo soo faray nebi ibraahim wuxuu hi ummaddii salaan iga gaadhsii waxaanad u sheegtaa arrinta meesha jannada la yidhaahdo markaa ilaahay uu awliyadiisa ku casuumayo ayibatu turba cadbat lmaa wa inahaa qiicaan qarsuhaa subxaana allah alxamdu lilah
walaa ilaaha ila allah wallahu akbar. ciidda jannadu waxa weeye mid wanaagsan oo udgoon, biyaheedu way macaan yihiin, waa meel isku simanoon boholo iyo buuro iyo turunturo toona lahayn. waxaa lagu beerayo ee barwaaqadeeda ay ku baxdaana waa dikriga subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar. qof waliba u odhan karaa, odayga iyo islaanta iyo mid mutacalima, mid waliba wardigaa iska kooban wuu akhriyi karaa isagoo boqolaal iyo kumayaala. dee waad beeraysaa un jannadii. waxyaabaha jannada lagu beero waxaa ka mid a istikfaarta. astaqfiru اllaha waatuubu ilayh, astaqfir اllah, astaqfir اllah, astaqfir اllah, astaqfir اllah. astaqfirullahu maaha, dadkeenu way khaldaan. astaqfirullah waa qalad, astaqfiru llah saasaa loogu dhawaaqaya. sayid istikfaar, nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam, istikfaarta waxaa hormuud u ah inaad tidhaahdo laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila ant, allahuma anta rabbii laa ilaaha ila ant, khalaqtanii wa ana cabduk wa ana calaa cahdika wa wacdika ma staطactu, acuudu bika min shari ma sanactu, abuu laka binicmatika calaya wa abuu bidenbi fakfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa ant. dikrigaa qofka ku dhawaaqa gelinka hore hadduu dhinto gelinka dambe jannadu gelaya, hadduu gelinka dambe ku dhawaaqana gelinka hore jannadu gelaya. kolba waktiga uu ku dhawaaqo jannuu ku helaya, waa wixii jannada lagu helay. waaba dikrigaa iska koobanba, qofku wuu xafidi karaa. aayat lkursiy, nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, qofka akhriya salaad walba markuu ka baxa aayat lkursiy, qofka akhriya lam yamnachu min dukhuuli اljannati ilaa an yamuut. jannada inuu galo waxaba ka hor joogo inuu dhinto. waxa isku beegmayo in isagoo ku wardiyey oo salaad ka baxaya isagoo naftu ka baxdo, jannadu calatuul u galaya baa lagu leeyahy. ismullaahi lacdan baa ku jira, shaydaankiina way kaa eriyeysa. waxaa ka mid a waxyaabuu nebigu xusay inoo sahlan bee kooban ee jannada lagu gelayo ducadan suuqa marka uu gelayo qofku inuu akhriyo. laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa xayun laa yamuut, biyadihi اlkhayr wahuwa calaa kuli shayin qadiir. waxaa loo qorayaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam alfa xasana, kun oo xasano. macnaheed waxa wey kun lagu dhuftay 1 milyan oo xasanaa loo qoraya. 1 milyan oo dembina waa laga dhaafaya, 1 milyan oo darajona waa loo dalaacaya. waxaynu uga jeednaa waa buniya lahu beytan fi ljanna, gurina jannadaa looga sii bineeyey. soo maad jeclayn haddii meel aad soo degayso guri goglan oo sallaxan oo guryaha ugu qaalisan ee ugu raaxo badan uu sii diyaarsan yahay gurigaas, haddii aad intaasun ku wardido aada akhriyayso. waxyaabaha cajiibka ah ee inoo sahlana jannada wadooyinkeeda waxaa ka mid a su-aaluljanna, inaynu ilaahay barino jannada, ama af carabi ku bari ama af soomaali ku bari, luqadda taqaano ku bari. ilaahay luqadahoo dhan in isagaa ina baray subxaana wa tacaala. rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam, waa xadiid isna saxiixa, albani silsiladiisa uu saxiix kaga dhigay, haddii qofku uu 7 jeer yidhaahdo ilaahay u naartaan kaa magan galay, ilaahay u naartaan kaa magan galay, af carabi iyo af soomaali midku doonaya ha ku dhaha, 7 jeerna yidhaahda ilaahay jannadaan ku weydiista, naartiiba hadlaysa. waxay leedahay ilaahay ow addoonkaa iga kaa magan galay ka badbaadi, iga badbaadiyo iga jooji, waa loo aqbalay. ilaahay ow addoonkaa ikaa weydiistay halkan keen bay leedahay jannaduna. ilaahayna subxaana wa tacaala isagaa u fasaxae wuu ku geynaya. maxay ku yeelaysa 7 jeer inaad ku celiso. waxaa ka mid a qowlu laa ilaaha ila allah, balaa shahaadadii suuqa yeelatee dad badan baa u haystaa shahaadada in lagu islaamo la joojiyo uun, intoo lagu islaamo islaamka lagu soo galo furaheedii uun ay tahay in halkaa la iskaga xidho. ashahaadadu waa wardiga ugu qaalisanba, wardiga aad baalal ku yeelanaysa ilaahay xaggiisa u duulaysa waa shahaadada. markaa intaad kari kartaad badinaysa laa ilaaha ila allahu, laa ilaaha ila allahu, laa ilaaha ila allahu, laa ilaaha ila allahu, laa ilaaha ila allah. nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi xadiidkii saxiixa, man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna. qofka markay naftu ka sii baxayso laa ilaaha ila allah intaa ku dhawaaqaa jannaduu gelayaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam. saa daraaddeed bay habboontay intaynu dadka sii dhimanaya xiijin lahay, wali misaal hebel ku lahay, hebel maxaad siinaysaa, aniga maxaad isiinaysaa, iyo inaanaan shahaadada seejin oo aynaan ka xanaajin. mid baaba laga yaabaa inuu ku xanaaqo u hahdo maanaa dhaxalkayga u soo dhigatay, sidaa ku shahaado seego. marka waxaa muhiima laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah, laa ilaaha illa allah in la badiyo. salaada xusay nebigu calayhi salaatu wasalaam, qofka ku dadaalaya salaada ee aan xaqiraynin, dayacaynin,
ilaahay agtiisa cahdi buu dhigtay iyo ballan inuu jannada geliyo hadduu xataa gef ku dhacaba gef baa ku dhacee ilaahay agtiisa ballan buu dhigtay qofka tukanaya inuu jannada geliyo sidoo kale jannada inuu ku gelayaa buu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu ku dadaalo 12 ragcadood ee raatibada la yidhaahdo salaadaha raaca 2 ragcadood oo ka horeeya subaxa 2 ragcadood oo duhurka ka horeeya 2 ragcadood oo ka dam ama 4 ragcadood duhurka ka horeeya way jiraan labaduba iyo 2 duhur ka dambeeya 2 maghrib ka dambeeya 2 cishaa ka dambeeya marka duhurkii baa wuxuu leeyahay maxay 6 buu leeyahay iyo salaadaha kale oo 6 casarkii markaa kuma darin nabigu calayhi salaatu wasalaam marka 12 ragcadood hadduu qof ku dadaalo jannadu galayaa buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa tobnaado waxyaabaha jannada lagu galayaa man khutima lahu bisiyaami yawmin dakhala aljanna xadiisna saxiix xudayfa warinayo qofka isagoo sooman khaatumadiisa soomo u dambeeyo maalinka ama sooman ama maalmaha u dambeeyay soomayay soonku fadligu leeyahay jannadu ku galaya infaaqa isaguna lamida oo ka 11aad wax bixinta iyo shayga deeqda nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii magaalada madiina waxa ku yaalay ceel aad u biyo badan oo bulshadu ay u baahnayd Roma la oranay biyo Roma marka ninkii lahaa uu nabigu ku yiri il jannada ma ku iibsano umada maadsiin wax kale aan haynin buuriyo inta waan u baahana Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa ardaahu ayaa ka iibiyo ninkii lacagtiisii siiyay lacag markaa qaali ahayd ayuu ka bixiyay 35 dirham oo qiimo waqtiga lahaa laakiin nabigu afka u soo dhuubay wuxuu yiri ceelkan isaga ah haddii aan bixiyo ma ku helayaa ishii aad sheegaysay ninkii uu ku heli lahaa ila waadiga yiri haddaad ceelkan bixiso isha jannadaad ku helaysa haa waad ku helaysaa buu daba ilaahay daraadii baan u waqfay marka in dadkan haraaday ee xiiqeed uruuftu ah si ceelal biyo loo qodo oo la siiyo wixii la heli karayo iyo sadaqada sheekhuba markii dhaweydii sheegayay waxaad u qiimo badan weyn noocyadeeda kala duwan biyahana u sii fadli badan waxa 12aad oo wadooyinka jannada kamid ah al-hirsu ala birri al-walidayn labada waalid samafalkooda aad loogu dadaalo labada waalid samafalkooda aad loogu dadaalo Aisha waxay tiraaheen baan ku riyooday inaan jannada galayo quraan la akhriyo baan maqlay markaasaan waayo qofka quraanka akhriyaya Haritha ibn Nu'man ninkii la oran jiray baa jannada ku jiro quraanka akhriyay baa leeyahay nabigaan u sheegay markaasuu yiri kadhalika albirr samafalka caynkaas ninkaas waalidkiisii uu samafali jiray buu ahaado samafalkaas uu ku helay aljannatu tahta aqdam al-ummahat jannadu waxay ku jirtaa hooyada agteeda hoosteeda marka haddaad hooyada galka qabatood maslaxatood u samafasho way kaaga dhaqaaqi haddii kale lugtii aw samiray ka saari Soomaalidu waxay yaqaanaan nin weliyaho deyntu leegiyo tolo waa mid ay sawirteen oo marka waxay dhahaan waxa lugtii aw samiraa la saaray aw samiru xaq u joogaa khiyaaliye iska sheegaya marka si aanay lugta aw samira kaaga saarin islaanta ku hooyaa iyo aababa in loo samafalo oo loo ihsaan sameeyo jannada lagu raadiyo xusnu tarbiyati albanaat yaba ajiib hablaha wiilasha ma sheegin laakiin waa hablaha wiilashana waa lagu helaya laakiin si gaar ah nabigu wuxuu calaamadiyay hablaha oo qofku dhalay ama ay walaalaha yihiin ama mas'uulka uu ka yahay in loo samafalo waxa lagu helaa janno suuqan aynu raadinayna jannadoba wuxuu ku jira hablahan dadku ay necab yihiin maaragtay ay yiraahdaan qofka maxaa markuu gabadha wax dhasho maxay dhashay asal la leeyahay inan wuxuu leeyahay ulqashakeen warma ulqashi la soo doonanaya haddii la yiraahdo inanna xaggaas uu isaga dhaqaaqaya markuu u sahlan yahay haddaan hadal kale ka soo neefneefin uu iska dhaqaaqaya uu iska tagaya suuqoodii waa qaali hablahaas waa xaami weeye nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiix ahaa man kaana lahu 3 banaatin yuwiihinna wayakfiihinna wayarxamuhunna faqad wajabat lahu aljanna albatta qofka 3 hablood leh oo kuwa aynu soo sheegnay uu dhalay midalan soo dhaweynaya u samafalaya u naxariisanaya shuruudaha ku xidhan ma hiifayo ma haaraamayo ma karaahaysanaya ajrigii wuu iska burinaya bakhaylku 2 jeer buu khasaaraa haddii isagoo u shaqeynayo dadaalayo hoosta ka inkaarsan yahay oo la kuwana la igu saleeyay abaar bay qaba inanba kuma jiro
adduunyada in lacagti ka baxday aakhirana ajar kuma heli marka maxaa loo baahan shuruudu ku xidhay nabi uu soo dhaweynaya uu samafalaya uu jeceliyo uu naxariisanaya waka wuxuu galayaa uu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam jannadu galaya zawjkii waa arinta dumarow ka fiirsada geedkii dumar la oran jiraa warkana u yaala waxa weeye ninkii kiisayga la oran jiray faraa lagu taagi jiray ee lagu fiiqi jiray hadaa laga fiirsada warkiisa ruux dumaraho saxaabiyada baa nabi maxamed u timi maalin maalmaha kamida nabiguna asxaabta dhexdooda uu ka kaluumaysanaya ama aragtidiisu aad bay ugu dheeraydo wuxuu ahaa qof ilaahay uu siiyey caqli badnaan iyo fariidnimo iyo cilmi iyo wax walba qofba halka ku munaasabsan buu kala hadlaya marka wuxuu ku yiri adaatu zawjin ant miyaad xaas tahay oo nin miyaad leedahay waxay tidhi ha marka rasuulku wuxuu yiri fa kayfa anti lahu sidabaad isku tihiin ama sidaad ku tahay waxay tidhi ma aaluhu illa ma ajaztu anhu waxaan kari waayo waxba kama karo waan u dadaala odaygay marka nabigu wuxuu yiri fanduri ayna anti minhu fa ahsini fa innahu jannatuki aw naaruki bal hadda ka fiirsa arintiisa oo u samafal jannadaana uu noqon karaa naartaadana uu noqon karaa marka haddaad u samafashaad hagaajiso xaq uu leeyahayna siiso ihsaan ugu darto jannaad ku helaysa hadii kalena naar saasuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam gabadhana haddii loo samafalo saasoo kale janno loogu helaya waxa 15aad oo wadooyinka loo mara jannada kamid xusnul khuluq akhlaaqda wanaagsan wala adraaka ma xusnul khuluq nabiga waxa la weydiiyay calayhi salaatu wasalaam xadiis sugan oo uu warinayo Ahmed ibn Hanbal Tirmidhi ibn Majah akthar ma yudkhilu an-nas al-janna maxaa ugu badan ee dadka janno geliya asxaabtu ridwaanullaahi calayhim sahraba inuu soo sheegnay hankooda weynaa su'aalaha ay nabiga weydiinayaan muu ku saabsanayn maxaa la cunaayo bal ka waran haddii aan geedkaa cuno geedkeebaa caafimaadkayga u wanaagsanayo geedkeebaa dhalmada u fiicanayo cawtalgasiirka lacagta lagu helaa waa kee iyo waxaasay nabiga dadka qaarkood hadday la kulmaan maanta weydiin lahaayeen iyo meelaha ugu fiicane shaqada loo maraya iyo waxaas asxaabtu waxay weydiinayaan jannada maxaa ugu badan ee lagu heli karaa xikmadii ilaahay uu siiyey buu u dhiibay wuxuu yidhi taqwa allaahi wa xusnul khuluq ilaahay oo laga cabsadiyo akhlaaq wanaagsan eeg waa diin iyo dabeecad wanaagsan qofku hadduu labadaa leeyahay wuu macaan yahay ma laga caajisayo dabeecad wanaagsan baa ilaahay ku abuuray isaguna wuu ku dadaalaya inuu dabeecad fiican naftiisa u sameeyo dad kalena uu la saaxiibo iyo diin labadaa hadduu leeyahay shaqadaa loo diranayaa waa lala saaxiibayaa waa lala degayaa dumarkaa loo guurinayaa suuqiisu waa shidan yahay waaya taasuu saasuu nabigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam inaynu ku dadaalo wey mar kale nabiga waxaa la weydiiyey waxa ugu badan ee dadka naarta geliya waa taa hore cagsigeed wuxuu ihi alfamu walfarj subxaana allah waa afka iyo ibta qofkoo labadaa ka waasha afkan sare iyo afka hoose labadaasuu ka waasha oo xaaraan ayaa ka soconaysa ama uu ku wadaya naartuu gelayaa buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha waa qodobka 16aad ee ka mida waxyaabaha lagu galo jannada ilaahay ha inoo aqbale ee waxa ka mida markhaatiga ay dadka wanaagsani u markhaati kacayaan qofka ama ifka ha joogo ama ha dhinto dadka saalixiinta ee wanaagsan ayaa qofkan uga markhaati kacaya wanaagiisa hebel wanaagsan buu ahaa heblaayo qof wanaagsan baa saasaa la yidhaha qofka fiican marka uu dhinto waa kii nabiga jinaasad lala soo maray markaasay dadku eedeeyeen way ammaaneen taa hore markaasuu nabigu way waajibtay haddana mid kalaa lala soo maro way eedeeyeen markaasuu wajabat way waajibtay markii la weydiiyey tafsiirka ereyadaana wuxuu ku fasiray ka hore wanaag baa ku sheegteenoo jannaa u waajibtay ka labaadna naar baa ku eedayseenoo macnaa waxaa tilmaanteen inuu eedaysan yahay oo dembiilo yahoo dhibaatooyin lahaayoo naar baa u waajibtay wuxuu ku soo gebagabeeyey rasuulku antum shuhadaau llaahi bacdukum calaa bacd markhaatiyaal ilaahay baati oo dhulka jooga laakiin ka waran dadka markhaatigooda la dhagaysanaya waa ayo ma faasiqiinta ma gaalada ilaa haddii imika dadka gaalada ama dadka faasiqiinta la weydiiyey markhaati ka ugu shar badan bay u markhaati kacayaan inuu wanaagsanaa
qolo waliba shimbirkiisu ku ammaanaya dadka markhaatigooda lagu xisaabtamaya waa antum nebigu wuxuu leeyahy idinka waa ayo waa asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam markaynu intaa aragnay sababihii lagu gelayay jannada dee waxaa mudan inaynu guntanno intood tirsatood qodobaysato inaad mid walba isku dayda inaad ku dadaasho waxaynu usoo gudbi lahayn inaynu dhex tagno allahayna dhex geeyo jannada ilaahay subxaana wa tacaala horaynu ruqaansannay markaa jannadii baynu gaadhnay waynu daadaawanaynaa insha allah allah inoo aqbalo binaau dunya wa binaau laakhira waxaan isbarbar dhigaynaa bal halkan waxa yaale lagu wareeray ee loo waashay ee ilaahay iyo aakhiriyo diinba loo sheegay ee nicmada adduunyada lagu sheegay marka dhismaha adduunyada iyo dhismaha jannada ayaynu sheegaynaa dhismaha adduunyada waynu naqaana waa inagaa dhex fadhina arkayna laakiin dhismaha jannadu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay labinatun min fida wa labinatun min dahab xabad labani waa dahab xabad labanina waa lacag iyo dahab macdantii saafiga ahayd halkay taalle waad garanaysaa iyo qiimahay adduunka ku lahayd macdantaas qaaliga ah ayaa xabad labanoo dahaba iyo xabad labanahoo lacaga ayaa isa saaranba wa milaaduha almisku ladhar mifsalkan u dhexdhexeeya ee loo dhexdhexaysiiyo labanka isu hayaana waxa weeyaan cabarka bahalkaa la yidhaahdo miskiga ee aadka u udgoon ee qiimaha badan halkii dhoobada iyo sibirhka kaasaa ku jira waxasbaauha lulu walyaaquutu wa turbatuha zacfaraan quruuruxa jannada iyo shayga ciiddee yaalaana waa lulu iyo jawhar ayaa quruurux iyo ciid uga dhigan ciiddiina waa zacfaraan wamasaakina ayibata fi jannaati cadn jannadu waxa ay leedahay khiyaam halka dadku maanta bangalooyin ay ku barwaaqaystaan ay isleeyiin waa ku badhaadhaysaan ay samaystaan bangalooyinka jannada ee ilaahay awliyadiisa ku casuumay buu nebigu inoo sharxaya calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy qofka muuminka ah jannada wuxuu ku leeyahy lakhayma min lu'lu waaxidatun mujawas duulahaa 60 miilan lilmu'min dherarkeedu wuxuu leegyahay 60 mayl 60 mayl mise magaalay ka kooban yihin 60 mayl waa loo safraa oo safar baa loo galaa guri keliyaa intaa la eg meesha sida loogu bogsadee loogu barwaaqaystay fiiha ahluuna yatuufu calayhim اlmu'min falaa yaraa bacduhum bacda ninkii mu'minka ah halkaa xaasas baa u jooga dumarku iyay ka xanaaqin oo hinaasuu yuu ilaa aakhire soconin fiiha ahluuna yatuufu calayhim almu'min dumar baa halkaa u jooga ninkii mu'minka ahaa oo la kulmayo laakiin nasiib wanaag laa yaraa bacduhum bacdan dumarkaasi isma arkayaanoo isma ogan mid waliba waxay u taqaanaa ninkan inuu keligeed qabo dadkan waxaa ka waalinaya xayraanka iyo hinaasaha dumarka ugu wacnaa tii kale ama arkaysa ama uu ku maqan yahay ama wuxuu sii sidaa laakiin haddii keligii uuna iyadu isu og tahay arkayso tan kaleba aanay ogeyn waktiga uu siinayaana ku fulan yahay maxay uga baahantahay tii kale maba ku hinaasayso saasuu nebigu ku sharxay calayhi salaatu wasalaam waxa uu rasuulku ka warramayaa aan idhaahno horta aayaddii waxay ka warramaysaa webiyada jannada webiyada adduunka waa la yaqaana maray guraan iyo maray dhooban leeyihin iyo maray bakteriya balaaya ku dhalatay iyo maray sunoobaan laakiin qur-aanka ilaahay waxa uu ku xusay subxaana wixii la cabayay adduunkan koobabkan yaryarka ah laynoo darayay ayaaba webiyaalaba waaba webiyaal dhiishii faqriga iyo duruuftii iyo wixii o dhan baa la iska dhigay fiiha anhaaru min ma waanhaar waxa ilaahay baa wuxuu leeyahy mathalu ljannati alatii wucida almuttaquuna fiiha anhaaru min maain gayri aasin waanhaaru min labanin lam yatagayar dacmu waanhaaru min khamrin ladati lishaaribiin waanhaaru min casalin musafaa walahum fiiha min kuli hamaraat waa webi biyaa webi caanaa webi khamriya webi malaba anhaar weliba anhaar waa webiyaal waa malab iyo caano iyo biyo iyo khamri webiyaal qulqulaya wax cajiiba wey ma dareemi karaysa dadkaasi inay horey ka dhargeen laakiin waxa nicmada la yidhaahdo anfac iyo arag labadaba waa inay kugu deeqdo oo nin baa wuxuu ihi wixii araggiisu ideeqaaba anfaciisu ideeqaa markaan shayga eega badnaantiisa aan arko markaasaan horta iska sii dhargaabuy iminka wuxuu hadduu yarya waa la isku qabsadaa dadka qof walibana u warwaraa wuxuu sira ayuu kaa dhammaanin
laakiin shaygu marka aad aragtay inuu fara badan yahay barwaaqadiisu badan tahay ishu ka sii dhargayaa qofka nisaa'u dunya wa nisaa'u aljanna dumarka jannada iyo dumarka adduunyada dumarka adduunyada da waynu naqaanaa iyadoo dee aan waxba laga sheegayn haddana waa bani aadam nuqsaan leh sida ragguba nuqsaan u leeyahay waxyaabo kala duwan oo nuqsaantaas laakiin ilaahay wuxuu xusayaa marka uu dumarkan adduunyada laftigooda ka kaxeeya adduunka inaanay kuwiiba ahayn ay isbedelayaan inna ansha'naahunna insha'a fajacalnaahunna abkaaran curuban atraaban liasxaabi alyamiin dib baan u habeeyey baa ilaahay heblaayadii ma aha hadday madoobaan jirtay hadday gaaban jirtay hadday waxyaabo kaloo dhaliilaa yeelan jirtay tii ma aha xururciinta ayaa kor u eegeysa allah inaga yeelo dumarkeennana kuwa allaha ka dhigo dib u habayn baan ku sameeyey baa ilahay ui dumarkii adduunyada markaasaan ka dhigay kuwo wada da-yaroo hablo ah oo wada rag jecel oo iswada la-eg baan ka dhigay baa ilahay ui subxaana wa tacaala mar kale wuxuu tilmaamay aswaaju mudahara inay yihiin dumar dahaaro badan oo wixii adduunyada ay iska nadiifin jirtay kharashka badani kharash badan baa sidii laysu nadiifin lahaa meeshan iga baxa mid la ismariyo iyo mid la isku maydho iyo mid la isku shubay iyo mid la isku udgooneeyo lacagteeni ba halkaasi ku dhamaatay aswaaju mudahara dumar la nadiifiyey ayaa halkaa jooga ayaa ilaahay uu subxaana qaasiraatu darfi mar kale waa dumar ishoodu ay gaaban tahay oo meel ilaahay uu diiday iyo meel xaaraan ah iyo midnaba aan eegayn xurun maqsuuraatu fi lkhiyaam waa dumar cadcadoo ku urursan meesha la yidhaahdo bangalooyinka ah waxaa si yaab badan nabigu markuu sifeynaya calayhi salaatu wasalaam dumarka hanka weyni kuwaasi higsanayaane waxa uhi walow ana imra'atan min ahli اljannati طalacat ilaa ahli اlardi la adaat maa baynahumaa walamala'atu riixa haddii dumarkii ahlujannaha mid ka mid ihi mabay soo bixinba way saasunbay usoo egtay caalamkeennan unbay saa usoo egtay waxay buuxin lahayd cirkiiyo dhulka inta ka dhaxaysa ayay iftiimin lahayd iftiin bay buuxin lahayd udgoonna way buuxin lahayd xurucintaa mid ka mida marada saaran madaxeedaasi khayrun min addunyaa wamaa fiiha adduunyada waxa lagu hayo oo dhan ee barwaaqo ah ee kala duwan masarkeedaasaa ka fiican meeshaynu ku xiiqayno dumarku halkay ku xiiqayaan ee kiishadan yar lagu adkaysanayo dumarow ka fiirsada barwaaqa halkaasay taalla masarkaagii iyo araggaagii labadiiba tilmaantaasuu nebigu ka bixiyey calayhi salaatu wasalaam markay saa usoo egtay adduunkii matoosh baa lagu qabtay u wada iftiimay marka la eego udugeeda ceriyo dhul inta ka dhaxaysa ayaa udgoon masarkeediina waa qaaliyo halkaas u gaadhsiisan yahay mucaamalada ragga iyo dumarku halkaa ay wada mucaamaloonayaan way ka duwan tahay tii adduunkii ama howlaha badnayd ama lagu xiiqayay ama dhalmadu daba socotay waxyaaba badan baa jiray nebigu wuxuu leeyahy yucطى axaduhum quwata 100 rajuli fi اlmadcami wاlmashrabi wاshahwati wاljimaac midigaa ka mida waxaa la siinayaa 100 nin awoodu xagga cunada iyo cabidda iyo galmada 100 nin ayaa uu la awoodiyay buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam isbeddel baa meesha ka dhacay iyo dib u habayn la yaab badan mulkiga adduunyada iyo mulkiga jannada ama lahaanshaha qofku waxaan uu iska leeyahay adduunka noocuyo waynu naqaanaa iyo jannada marka la isu eego labadaas siday farqiga u dhaxeeya nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii kelmadihii iyo xikmadda ahaa ninkii shaacirkaa kaga daba dayanaya lahaa allaahuma laa caysha ilaa cayshu laakhira fakfir lilansaari waalmuhaajira ilaahay u nololi waa nolosha jannada ee asxaabtayda u dembi dhaaf nolol adduunyada la barbar dhigi kara taa jannada ma jirto wuxuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam mawdicu sawdi axadikum min aljannati khayru min addunya wamaa fiiha mid idinka idinka midii ushiisa meeluu sidaa jannada u dhigo waxay ka fiicantahe wax alla waxa nicmo adduunka lagu hayo o dhan in maanta loo waalan yahay la isku dilayo ee la isku haysto usha meesha intaa in leegoo jannada la dhigo ayaa ka khayr badan buu nebigu ilaahay baa wuxuu subxaanaه wa tacaala waidaa ra'ayta hama ra'ayta naciima wamulka kabiira haddii imika lagu fasixi lahaad halkaa jannada saa u eegi lahayd qof iyo lala hadlayaa waxaad arki lahayd nicmo aada u fara badan iyo lahaansho aada u weyn buu ilahay subxaana wa tacaala isagoo ina cishqi gelinaya shayga la yidhaahdo jannada
qur-aanku aad baa wuxuu u sharxaa sidaa sharaabka u soo sharxay waxa lagu cunayo kala duwan haddii ay tahay shimbirihii hilibka wanaagsanaa iyo khudradda oo kala nooca qur-aanku aad buu u tilmaamaa waanay kala duwan yihiin runtii cunadan adduunyada aynu cunayno iyo cunada aakhiro cunadan adduunka marka u horeysaba sidii lagu soo saari lahaabaaba ayaaba xadaafiir iyo xayraan inagala kulmaya bal inta tacab loo maraya beerihii la berayay kharashka lagu bixinayay muddada la sugayo marbay ba'aysaa marba duruuf badan baa inaga haysata sidii loo soo saari lahaa marka la karinayana dee la diyaarinayana waa adiga arkay marka la cunayana waa adiga arka waabaad ku rafaadaysaa saacad baad calaashanaysaa qaar baad ku merganaysaa hawl badan baa inaga haysata markay caloosha gashana in yar kadib baad oranaysaa xaggee suuligu ahaa mama hayn karaysidba waa wixii aad u hamuumayseed u dhareerinaysay haddana halkan markay ku hilmaan ma hayn karaysid oo waa inaad isdhaafiso haddii ay kugu xidhmaanna khalaas ilaah un baa kaa soo dayn karaa cid kuu gurmanaysaa ma jirto sheekh mufasiriinta ka mida baa wuxuu sidaa u sharxayaa falyandur ilinsaanu ilaa طacaami annaa sababna almaaa saban uma shaqaqna alarda shaqa falyandur ilinsaanu ilaa طacaamihi qofku ha eega raashinkiisa wuxuu ka soo bilaabayaa markii la beerayay ilaa marxaladaha lasoo marinay ilaa marka uu noqonayo qashinkii uu geynayo qofku xamaamka intaasuu isku xidhaya raashinkii adduunku hawshuu yeeshay iyo wuxuu ku dambeeyey iyo markii hore wuxuu ahaa iyo xaaladiisa laakiin raashinka ahlu jannuhu kaa wuu ka duwan yahay waa shay aan lahayn dhibkaas ma leh intaa oo aynu soo sheegnay midna ma leh neerfaha ku shaqaynaya waa neerfihii rafaadka maaha waa neerfihii macaasiga iyo raaxada kaasaa ku shaqaynaya sidoo kale xamaamkiina ma lahae siduu nebigu xusayay calayhi salaatu wasalaam axaadiidta dambe ku arki doono waa dhidid iyo daaco dhididkiina waa cadar daacadiina waa udgoon marka halkaasuu ku hadhay wixii la odhan jiray inuu qofkii xamaam la tago waxaa qur-aanku ka warramay jannadu inay leedahay shaqaale dee qofkii ma raaxaysan karaya hadduu kacakufayo oo kolba uu soo maaragtay waxyaabahaynu aada u dareennay bay ka mid tahay weliba dadka waayeelkii markaa halkan timaadeen inkastoo lalahaa bal hadda waddamada gaalada ay gaadhsiiya iyo meelaha lagu ladan yahay dhibka ugu weyne qabtaan mataqaana ee qofka xaggii ka yimi uu dareemayo waa shaqaalo la-aanta bal oday iyo islaan sidaa suxullada ugu soconayo shaqaysanaya oo kijinkii uu gelayo qofkiio intaa wuxuu isku dhalaalinaya halka innaga dadka waayeelka ah iyo qofka loo adeegi jiray ee loo shaqaynayey runtii tacabkaa uu ka nasanayay qofka markaa qofku kolku raaxadiisa qaadanayaa waxa weeye dad adeegayaalahoo shaqada u jajabani markay hareerihiisa boodayaan adiga arko hodheelada maxaa lagu xayeysiiyaa hodheelkaasi cunno macaan buu hayaa waxaana jooga shaqaalo jajaban bay ka odhanayaan wuu xayeysiinaya shaqaalo jaban shaqaalo u jajaban shaqada ayaa jooga markaa waxaa la dareemayaa dee raaxadii inay qeyb weyn ka qaadanayaan shaqaalihii sidaasay tahay oo qur-aanka kariimkaa ilaahay marka uu ka warramayo shaqaalaha waxa uu leeyahy wayatuufu calayhim wildaanu mukhalladuun idaa ra'aytahum xasibtahum lu'lu'an manhuura waxaa dushooda sidaa u wareegaya oo aan mar qura ka nasanaynine ishooda iyo afkooda iyo gacantooda wixii ay dalbayaan sidaa u eegaya shaqaale markaad sidaa inama la waariyeyba horta ilaahay waxa lagu waariyey inay yaryaraadaan waa wildaan inama da-yaroo shaqaynaya oo aan intaa ka weyneyn qofku hadduu weynaado maogtay ma diran karayside laba waaweyn isma dirtaan haddii iminka qofku ku ag joogo oo uu ku leegyahay ma odhan karaysi hebeloo alaabtaa idhi waxay kuu kalifaysaa intood kacdo inaad soo qaadato laakiin ciyaalku iyagaaba ka helaba in la diraba way isku qabsanayaan haddaad iminka laba ciyaala tiraa ii keen anna ii dir buu kuleeyahy marka waxay ku waarayaan inay yaraadaan intaa ma dhaafayaan oo ilaahay baa u diyaariyey iyaga laftigooda shaqaalaha markaad eegto waxaad u malaynaysaa buu ilahay yidhi jawhar sidaa jannada loogu daadiyo way wada dhalaalayaan waayo hadduu dhalaalay kii loo shaqaynayey loo shaqeeyey maxaad u malaysay kii shaqaynaya hadduu saa u dhalaalayo loo shaqeeyihii maxaad u malaysay wax cajiiba wey qur-aanka kariimkaa ilaahay waxa uu ku xusay jannadu inuu khamri yaallo laakiin khamrigii adduunyada aanu ahayn laa fiiha qawlun walaa hum canha yunzafuun ma laha alkoolkii dadka sakhraaminayay iyo wareerkii lagu sakhraamayay midne waa sharaab macaan oo ladiida baydaa ladatin lishaaribiin
وخمر عد معان بدن ددك عب يبا إلهي سبحانه وتعالى وايه أهل الجنة براري برواقه ودماضي وحسن السويدية علماء السويدين يعني ما سيحدان أهل الجنة ماشي هرده ما ترتاح ما يدري ليه هرده هرته محاته maxaa loo seexdaa maxaase laga seexdaa dee waxaa laga seexdaa rafaad iyo buusbuuska iyo balaayadii shaqada ku soo martay qofku markan uu leeyahay waan seexanayaa dee wuu daalan oo tacabaa haysta ama uu xanuunsado waa diifaysan yahay qofku waxba ma qabo meeshii raaxa iyo hawl iyo daal iyo tacab midna ma yaalo sidaa daraadeed ma seexanayaan ahlujannuhu seexashadeenu haddii aynu seexanana waxaynu aragnaa marar badan in dhibay naga soo gaadho oo riyo xun oo raaxada ka qaada aad aragto saadarteed baa nin baa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasaa wuxuu xalayta waxaan ku riyooday iyadoo qoorta la iga jaray madaxaygiina uu halkaa cararay kadibna waan soo qabsaday markaasaan isku rakibay markaa nabigu uu la yaabay wuxuu idaa laciba shaydaanu bi ahadikum fi manaamihi falaa yuxadithana bihi annaas war shaydaankaa kugu ciyaara midkiin markuu shaydaanku ku ciyaaro dadka waxba uu sheegina iska aamuso marka hurdadii walaaqa iyo wareerka lahayd iyo ciyaarta shaydaanka meesha way ka baxday jawiga jannada manaakhu dunya wa manaakhu aljanna jawiga adduunyada dan waynu naqaanaayo waa idinka barafka la il daran in yar kadibna bacad baad u baxaysaa marna waad soo kogaysaa oo farahaagu waxay la gubanayaan qabow daraadi marna waxay la gubanayaan kulayl jawiga jannada waa mid ilaahay markuu ka warramayo wali muttakiina fiiha ala naraa'ik لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا waxay ku raaxaysanayaan sariira dushood mana arkayaan kulayl iyo qabow ibn Abbas radiyallahu anhu markuu fasirayo waxa uu leeyahay waxa la oran karaa jannadu in ay waqtigeedu noqon karo waqtigan qoraxdu ay soo baxayso intuu waagu bariyo Soomaaliya qoraxdii baa u dhow inay soo baxdo marka dhulkiina aad buu wada iftiimaya iftiinkii uu dhan yahay laakiin kulaylna ma jiro habeenna ma jiro kulaylna ma jiro waqtigaas oo kala lagu tilmaami karaa suuqyada jannada oo ka duwan runtii suuqan maanta aynu ka dukaameysano waligiiba ha lagu faano halkaasi moolalkaas uu leeyahay suuq wanaagsan buu leeyahay suuqa maxaa lagu tagaa mushkilada suuqu waxa runtii shaydaanku calankiisa ka taagay marka uu qofku galo dhib badan buu kala kulmaa iyo daal iyo deeqad iyo iyada oo lagaba yaabo in wixii uu sitay laga qaato iyo dhib badan baa ka soo gaaray laakiin suuqyada jannada markuu nabigu ka warramay wuxuu suuq baa jannada ku yaala maalin kasta oo jumco ah way isugu imanayaan ahlu jannuhu kadibna waxa sidaa u soo faafaysa neecaw riixu shimaal dabayl aad iyo aad cadar u wadata markaasay wejigooda iyo dharkooda cadar ku sii daynaysa ahlu jannaha markaasaa dhalaal iyo udgoon ayaa u kordhaya sidan arooska had iyo jeer marka meelaha loo soo tiirtiirinayo loo soo giijiyo iyagiyo suuqa ka yimid oo qurux badan markay ahlu jannihii yimaadaan ay xaasaskoodii u yimaadaan xururciinta ahaa ayay xaasaska odhanayaan quruxdiinu badana ahlu jannihina waxay leeyihin dee idinkaaba naga sii daran sidaasaa la isu caashaqayaa la isula dhacayaa sidaa daraaddeed haddaba laa tu'thir ilfaani cala albaaqi waxaynu ku soo gebagabaynaynaa waxaa halkan yaalle sidaa u dhammaanayaynu aragnay ee taajirkii ka cawday ee faqiirkii ka cawday ee kii waayeyna u waalan yahay kii helayna ku waashay baasha adduunyadu waaba labadaasu kii waayey iyadiibuu u waalan yahay oo kaasuu sii eegaya kii helayna ku ka sarreeyuu sii eegaya waa la wada wareeray haddaba marka taa faanigee tegaysa laa tu'thirha cala albaaqi taasoo hadhayse halkaa nicmadaa badan ay taallo iyaynaan ka horraysiinin alla wuxuu uhi mataacu dunyaa qaliil waalaakhiratu khayrun liman ittaqaa alaabta adduunyadu way yarti aakhira ayaa jannadaa u khayr badan qofka ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala ahlu janno markay jannada yimaadaan ilaahay ula hadlaya wuxuu leey maxaa idiin daran maxaan idin siiyaa waxay leeyihin ilaah wax walba waadna siisay kanaadna siisay waxba uma baahni wuxuu rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala maanta kadib wax cadho la yidhaha ka warwarin raalli noqoshahaygii baan idin siiyey cadhadayda ha ka warwarin cadhadii adduunka ay addoomuhu aada uga cabsan jireen mar labaad buu idin ilaahay leeyahy maxaan idin siiyaa
markaasay le ilaahay oo wajiyadeeyabaa cadaysay jannadiibaa ayaad nagelisay naar baad naga badbaadisay way kala badbateenoo way dhargeen shaacuu isaga qaadaya ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada awliyada ilaahay kumay arkaynina jannaday ku arkayaano markaasuu istusaya liladiina axsanuu lxusnaa waziyaada markay ilaahay arkaana isha saaraan allahuma ijcalnaa min haaulaa'i ayay aada u farxayaan jannada nicmadeediiba aragtida ilaahaybaa uga sii qiimo badnaanaysa waxa ay ku soo ururaysa arrintoodu markaa inay mahad badiyaan alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah ilaahay baa mahadle nicmada nagu soo hagay haddaanu ilaahay nagu soo hagi lahayn kuma anaan soo hanuuneen xamdigaa iyo tasbiixdaa sida neefsashadoo kale u wadayaanen dhib ku lahayn ayay markaa wadayaan halkaasaa farxaddiina uga sii soconaysa weligeedna aanay ka dhammaanayn lagama guurayo lagama gaboobayo lagama xanuunsanayo wax isbedeli ma jiro barwaaqadaasaa lagu waaraya iyaguna aagberdelasho ay ka doonayaan ma jiro waxa halkaa ku dambeeye horeeyaana ee ilaahay awliyadiisa iyo addoomihiisa u diyaariyu ku casuumayna